ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda mudane Shariif Sheekh Axmed waxayna ka wada hadleen sidii la isaga kaashan lahaa xasiloonida caasimadda iyo arrimaha doorashooyinka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la wadaagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed siday uga go'an tahay xukuumaddiisa inay dalka ka dhacdo doorasho loo dhan yahay oo xasiloon isla markaana ku dhacda cadaalad iyo nabadgelyo. waxaana ka codsaday dhammaan dhinacyada ay qusayso arrimaha doorashooyinka inay garab ku siiyaan sidii dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad oo nabdoon. markii uu kulanku soo dhamaaday ayaa waxaa warbaahinta u warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu kulan kula qaatay hoteelka Biis ee magaalada Muqdisho ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed. labada mas'uul waxay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo duruufaha maanta dalku uu marayo iyo sidii hore loogu socon lahaa. waxay isla jeexjeexeen arrimaha ku saabsan doorashooyinka, amniga caasimadda iyo xasilinteeda, iyadoo maaragtay la ogyahay baryihii la soo dhaafay inay jireen xasarado sababay gacan ka hadal. haddana ra'iisul wasaaruhu waxaa ka go'an in wax walba nabad lagu dhammeeyo, diyaargarowna loo sameeyo shirarka qaran ee dib u heshiisiinta ee dhici doona. sidaa darteed waxa uu sii wadaa kulamada iyo maaragtay xiriirka uu la sameynayo siyaasiyiinta Soomaaliyeed, isagoo u sharaxaya ahdaafta uu doonayo in dalkan uga gudbo kumeel gaarka maaragtay xilligan kala guurka uu ku jiro. marka runtii kulankooda wuxuu ahaa kulan aad la isku afgartay, la isula jeexjeexay wax badan, waxaana uu maaragtay labada dhinacba ay isla qaateen arrimihii ay ka wada hadleen. waxaan rajaynaynaa in ay sii socoto arrinta xasilinta amniga iyo qof walbana inay maaragtay dan u tahay magaaladan. ra'iisul wasaaruhuna waa ra'iisul wasaare nabadeed. Maxamed Xuseen Rooble waxa uu doonaya qof kasta inuu ugu tago. horey wuxuu ula kulmay siyaasiyiin ay ka mid ahayn qaar ka mid ah midowga musharaxiinta. sidoo kale waxa uu doonaya kuwa kalena inuu iyaguna la kulmo oo sidan oo kale uu maaragtay u dhageysto waxyaabaha walaaca ay qabaan iyo waxa ay doonayaan iyo waxa ay taladoodu tahay. waxaana uu rabaa meel walba dhinac walbaba inuu maaragtay gaaro oo ay ku jiraan xitaa dowlad goboleedyada dalka. waana kan maanta ku casuumay inay ka soo qayb galaan shirkii madasha qaran kaasoo la iclaamiyay inuu dhici doono 20-ka bishan May aynu ku jirno. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.